nabadda wadayaal meel kastoo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aare oo aanu ku eegi doono waraysi idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA ay la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo toddobaadkan uu marti noogu yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. inta uu socdo barnaamijkan martida mikrofoonkuna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa arrimo badan oo muddooyinkii dambe aad la isku weydiinayay kuwaas oo isugu jira xaaladaha gudaha Soomaaliland dhexdeeda, Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wada hadaladii labada dhinac u dhaxeeyay halka ay ku dambeeyeen iyo waliba qorshayaasha Soomaaliland ee muddada dhow iyo mustaqbalka fog. ugu horeyn aan soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxana aan ku bilaabayaa waraysiga qaybtan. ugu horeyn madaxweyne bal nooga waran xaaladda guud ee Soomaaliland. xaaladda dalka Soomaaliland meel wanaagsan buu marayaa Ilaahay mahdi waa sanad barwaaqo roob badan u da'ay oo dadku nimcooyinka u degan yahay. dalka gudihiisu waa nabad, shaararka nabad baan ku wada noolahay. Ilaahay mahdi talaabooyin horumar waa qaadnay kadib berbera haddii Ilaahay idhaahdo sanadka 2021 waa dhammaad wadadii isku xidhaysay berbera iyo wajaale ee berbera corridor iyo nidaamka 112 baa la sameeyey iyana waqtiga inay dhammaataan filaya ayaan sugan haddii la idhaahdo. wadadii dheerada ceerigaabana waxaa nooga hadhay dhammaadkeedii 60 kilomitir in ku dhow. haddii alla idhaahdo qorshaha kale waxay noqonaysaa wadada Burco Hargeysa. waxaan filaynaa wado kale oo ku jirta initiative-ka Africa geeska Africa la wado oo Djibouti ka soo bilaabato Boorama soo marto dalka Iran isku xidha intii awoodeedu ogolaato oo dadkoo isku duuban shacbiga dawladba ay wadaan baanu wadnaa. waayo waxaanu nahay dal aan adduunyada kale ixtiraafsanayn oo dhaqaale la wadaagin wax yaroo hay-adu keenkeenaan mooyaane oo iyagu isku kalsoon. markaa waa dadaalaynaa aad iyo aad baanu Ilaahay noogu mahadnaqaynaa waa ladanahay. waan gartay madaxweyne haddii tay roobab badan oo si xidhiidha u da-aya ay jiraan oo geyiga barwaaqo badani ka jirto waxaynu ka warhaynaa geeska Afrika inay kusoo noqnoqoto abaaro dadka iyo dunyadaba saameyn ku yeesha. marka xilligan barwaaqada maxaa ku tala gasheen ee aad qabateen si looga hortago haddii ay abaar kala soo noqoto? abaarihii dhacay iyo xaaladaha adduunka markii la eegay dadka Soomaaliland waxay go'aansadeen inay dhulkooda wax ka soo saaraan oo mustaqbalka dhow xagga cuntada iska filaadaan. markaa dad in badan baa tallaabo xoog laga qaaday xagga beeraha la beeray waa markii u horeysay ee dalagii ka soo baxay ay noqoto in suuq loo doono laga iibsado beeralayda. sidaa darteed dawladdu iminka waa ogtahay mashruuc bay samaysay ay dawladdu maal gelisay oo 1 milyan loo dhigay in loo maray dalaga dheeraadka inuu yahay oo dawladdu ka iibinayso ay ka soo iibsanayso beeralayda kaydinaysana si goor dhow dadka tabaalaysan loo siiyo. heerkaas aanu maraynaa waana la sii kordhinayaa. ilaahayna roobkii barwaaqada insha Allah uu noo wadi doonaa. mudane madaxweyne Soomaaliland waxay toddobaadyo ka hor u dabaaldegtay 29 sanadood oo ka soo wareegay markii lagu dhawaaqay gooni isku taaga. muddadaasi 30 sanadood ku dhow maxaad ku qiimeyn kartaa waxyaabaha qabsoomay, waxyaabaha aan qabsoomin ilaa hadda qabyada noqday iyo heerka aad isleedahay 30 sanadood waa laga filayay Soomaaliland markay jirto? marka aan ka qiyaaso maalintii lagu dhawaaqay iyo maanta guulahaanu gaadhnay iyo horumarkaanu gaadhnay wuxuu igu rajo gelinayaa in aan mustaqbalka soo socdo dhow orod dheer horumar intaa ka weyn samayn doono oo caalamka kuwa boqolaalka sano jiray la gaadid aanu higsan doono. waan kuu sheegayaa maalintii lagu dhawaaqay Soomaaliland magaalooyinka waaweyn badankooda caasimadu kamid tahay Hargeysa kamid tahay ma jirin ama u yaraa gurisa qabsaaray guri daaqadani ma jirin. wax madfac iyo diyaarad ay rusheeyeen baa heedo baabaa. xaafadaha iyo dhulka miina wada taalo dariiqna maad mareen beerna maad faran kareen meel la maad gaareen meel biyo socdaan oo biyo looga soo qaado dadka ma jirin oo waxa la xeel ahaa dhow waa la burburiyay. ardaydu meel wax ka dhigato dugsi ma jirin kursi xitaa lama hayna dhagaxyaan baa laga bilaabay. meel haddii alla beedankeeda leeyahay amaana oo qofku istaaga ama uu roobka gala madaxan magaalooyinka adartay ma jirin. halkaasaa laga soo qaaday. maanta waxaan leeyahay intaas oo jaamacadood magaalooyinka fooqyada ka dhisan ee shacabku dhistay iyo kuwa dawladba waad yaabe. waxaanu nahay dalka ugu ammaan badan ee lacagta iyo dahabka dibadda yaallaan. laakiin waxaa la sheegayaa inay weli jiraan caqabado iyo meelo badan oo aan laga horumarin oo ay gaabis badani ku jiro. caqabadahana waanu ka gudbaynaa. inta aan sodonka samaynay sanadoodna sida la isu dhisay iyo sida loo horumaraanu barano waa kasii dheerayna. ictiraafka waqtigu doonaha qaato
qiimuhu doonaha ku kaco Somaliland waa goolka ay higsanayso oo waanu gaaraynaa insha Allah waqtigay tahayba hamad weyn iyo niyad wanaagsan iyo waxa inspiration bana siisay soddonkii sano waxaanu qaban madaxweyne waxaad ka warantaa xanuunka coronavirus oo dunida faraba'an ku haya heerka xanuunka COVID-19 ee Somaliland dad badan uu ku dhacay 1521 qof baa la baaray baaritaankana waxa la bilaabay 21 March waxaa laga helay oo cudurka lagu arkay 348 22 qof baa u dhintay aad iyo aad baan u sahlanahay marka la eego dalal kale wuxuu ku saameeyay diyaar garow badan baanu galnay resource-kayga waxaanu haynaa waanu isticmaalnay waxa ilaahay mahadiya sidaan baayac mushtir iyo qof aqoon leh iyo dawlad si midaysan ugu gurmanay dalka qalabka xoogiisa oo dhan waxa soo iibiyeen baayac mushtirkayga shirkado badan baa milyan iyo dheeraad bixiyay nin waliba halkiisa iska xeel saaray laakiin waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay adeegyada caafimaad sida oxygen dadka lagu rakibo iyo qalabkan kale ee lagu neefsaday ee ventilatorska loo yaqaano oo muhiim u ahaa xanuunka coronavirus ka war arrinta madaxweyne dawladdu wixii loo baahnaa ma haynin China la isku tagay kuwiigoon xagga dambe ka galnay qalabkii baa dib nooga dhacay waa run marka dadka qalabkii u baahnaa hore maanaan keenin duruuftaasana keentay laakiin sidaan ku sheegay waxaanu hayno waan isku geynay maantana qalabkii badankiisa 60% baa yaala inta kale dhexda kusoo jirta madaxweyne 2 sanadood iyo badh aad xilka haysay waxaa isa soo taraya dad badan oo cabashooyin ka muujinaya hanaanka ay xukuumaddaadu u socoto iyo walaacyo ay ka muujinayaan dhinaca cadaaladda bal arrimahaasi nooga waran waxay ila tahay bini'aadmiga meel walba dawladdu ka cawda dawladda iyo cabasho waa kala maarmaan waayo marka qofka la dooranayo ee doorasho dhacayso waxa la filayo dadka wax dooranaya waxay filayaan iyo xaqiiqada inta la qabto mar walba kala bata oo dadku kul walba waxay filayaan firasho weyn iyo itaalkooda ta Mareykanka kamida ta Ingiriiska kamida tukasto doorasho gasha oo adduunka kamida marka waan ogolahay inay dadku ka cawdaan dawladda iyo xukuumadda iyo sax wax qabtay waa dadku isku aragti maaha anagu iyo xukuumadda waxaanu salaahay dar ilaahay iyo daacad baan ku shaqeynay iyo in dadku si cadaalad ah wax loogu qabto har iyo habeen loo shaqeeyo ummadda anagu halkaas aan taagan intayna ka gudbin cabashooyinkaasi haddaan su'aal kala sii raaciyo madax dhaqameedka oo inta badan lagu tirin jiray inay xukuumadaha la tirsan yihiin oo ay dhinac la yihiin xukuumaddaada waxaa muuqata in qaar ka mid ah madax dhaqameedku ay kasoo horjeedaan oo warbaahinta bulshada iyo warbaahinta kaleba ay kasoo baxayaan iyagoo dawladda dhaliilo badan u soo jeedinaya xaggee iska jiideen xubnahaasi ka mid a madax dhaqameedka iyo xukuumaddaada arrintan waxaa lagu sameynayaa anagu markaan meesha nimid waxaanu kala saaray xukuumaddii iyo shicibkii maamul ahaan dal ahaan talaanu wada leenahay dalka waxaa laga xukumaa oo laga hagaa qaybo badan golayaashii la doortay iyo xukuumadda waa meel madax dhaqameedka oo ummadda madax dhaqameedkoodii iyo dhaqankoodii waa meel culimada oo diintii haysa waa meel dadka maalqabeenka iyo suuqa xorta iyo ganacsatada oo dhaqaale dalka haya waa meel dhalinyaradii iyo haweenkii intaasoo dhan baa talada dalka qaranka wadaaga annagu intaba gacan wada shaqayn baan wadahay ra'yigoodaan dhegaysanaa soo jeedintooda dareenkoodaanu dhammaantood dhegaysanaa laakiin waxaanu kala ilaalinaa in xukuumadda hay-adahaasi isku wada qasmaan waayo xukuumadda shaqayn mayso iyadu way ka duwan tahay xukuumaddu madax dhaqameedka lama doorta waa dhaxal ganacsigu isagaa maalkiisa leh laakiin xukuumadaha imtixaan baa daba yaala waa lagu doortay middaa lagu doortay maxaad qabatay balantii maxaad qabatay marka hadday hay-adaha iyagu xortaa ku dhaqan ay ku milanto tallaabo qaadi mayso marka anaga culayska dheeradkaana la saaran sidaa darteed baanu hawsheeda gaar u wadnaa qolooyin kalena aan wada shaqayn la leena haddii aan hore uga sii socdo waxyaabaha kale ee xukuumaddaada lagu dhaliilo waxaa ka mid ah in saxaafadda iyo xorriyatul qowlka ay ku adag tahay oo ay gacan adag kala hortagto islamarkaana ay jiraan dad u xidhan fikirkooda oo ay cabireen ama safar ay meel ku tegeen eedahaasi maxaad kaga jawaabaysaa mudane xaqiiqo waxaan kaaga jawaabayaa waxay xaqiiqa waa la leeyahay iyo la soo sheegayaa iyo xaqiiqo maaha xaqiiqada aan ku sheegay waxay Soomaaliland waa dal dimuqraadi ah oo dastuur leh oo qof waliba xorriyadiisa uu ku doon karo haddii la taabto ma jiro qof la soo xidho oo aan waqtigii dastuurku u qabtay maxkamadda horgeynin laakiin 99% qof wal oo maxbuus la soo qabto waxa la mariyaa sidii soo sheegay waa inuu lawyer helaa haddaanu dhaqaalihiisa ogolaan dawladda u qabata waa inuu iska difaacaa dawladda xukuumaddu
haddii au qof ka tirsada xadgudub maxkamaddu toos ku dacwooda garsoorka iyagu waxaan umanayaa garsoor uga dhexdhexaadsan dadka inuu yar yahay. laba, dadka journalistaha ah, qof journalistaha oo lasoo qabtay oo waqtigiisii booliiska loo geyn oon maxkamadda la geyn oo looyar loo qaban oon doodin oon maxkamad xukudana male dee markaa qofku waa inuu maxkamaddii aaminaa. hadduu idhaa qalad baa laygu soo qabtay oo maxkamaddii aamini maayo maxay gardaraahayd oo matiis ma sax noqonaysa qofka. marka waxaan leeyahay Soomaaliland waxaa taala dimuqraadiyad, xorriyad saxaafadeed oo isla waata adduunka ugu badan. qofka Soomaalilandka xorriyad u haysta iyo halkuu gaarayo adiguba dhegeyso, caalamka cid gaadha weyrti waan u baranay maadaama aanu koranay dadka ay u barto xorriyad la sidoo qaato oo laga socdaa hawsha la qabsado. marka xorriyad iyo sharciyad la isu maraa taala dalkayga ma jiro afduub iyo cid ku xadgudubta. laakiin haddana wariyaal badan baa la sheegayaa in xukuumaddaadu xabsiga u taxaabtay, soo taasi ma jirto. sida sharcigu qof walba haddii iminka gaari aada wadato oo aada leyrka cas jiidho taraafigu ku qabanaya. qof wal oo ku xadgudba sharciga waa la ilaaliya. ma jiro anaa kugu celinaya qof aanu suxufinimadiisa u xidhnay. qofka suxufigaa la qabto waa loo sheegaa sharcigu jabiyey iyo wuxuu galay, maxkamaddana wuu tagaa, looyarna wuu qabsadaa. qofka intaa waayey waa khalad dhacay, waa saxayna hadduu jiro la helaba, laakiin 99% wadaasaa la maraa. madax banaanida garsoorka lafahantiisa ma lagu kalsoonaan karaa madaxweyne? garsoorka laftiisa mararka qaar lagu eedeeyaa inaanay xukuumadda ka madax banaanayn oo aanay dhex u noqon karin eedeysanayaasha iyo xukuumadda. anigu waxaan qabaa inay mar walba dowladda iyo qof haddii ay qabsadaan dhinac kasta iska cashuura isku qabsadaan, saxaafada isku qabsadaan, kiiskala isku mar walba inay dhinaca adag xukuumadda u dhigaan oo dhahaan dowladdu ha dul qaadso iyada dowladdii oo ay sharciga halka adag ka qabtaan dowladda. waxay maraan broseska ninkii loo yar maleeyahay dhexdhexaad xora ma yahay, sharcigiisii ma loo qaaday, abiil ma qaatay, intaasaa loo maraa. markaa qofkii garsoorka ahaa isagoo intaa maray oo qof iimaan la yahay oo mar walba loo dhaariyo sidaa, waxay ila tahay inay xadgudub iyo gardarro tahay in la yidhaahdo dhexdhexaad maaha. waan gartay madaxweyne, anigoo waqtigaaga kaaga mahad celinaya. dhowr su-aalood baan jeclaan lahaa inaan kaa weydiiyo arrimaha dibadda, haddaynu arrimihii gudaha intaa kaga nimaadno. aan ku horumarayo ictiraafka Somaliland. 30 sannadood wax yar baa uga dhiman, ilaa haddana ma jiro ictiraaf caalamiya oo ay ka heshay beesha caalamka, mana jiro dal si toosa u aqoonsaday dal madax bannaan. maxaa hortaagan baad isleedahay ictiraafka Somaliland? ma gaabis dhinaciina ka yimid baa jira, mise beesha caalamkan weli ku qancin qadiyadda Somaliland iyo waxyaabahaad ku doonaysaan ictiraaf inaad ka heshaan caalamka? horta wax waliba qadarka ilaahay bay ku socdaa, wax waliba qadar alle iyo waqtigeeda leeyihiin. Somaliland maalintii la dhidbay dib u soo noqoshada iyo dib u xorriyadda dalka ilaa maanta waxba iskama hakan. hadday caqli tahay iyo hadday tahay fikrad iyo siyaasad, wax walba way isku geysay sidii adduunku u aqoonsan lahaa dalkaas soo shaqaynayo dal wax loola qabsaday inuu yahay. ammaan baanu keennay, dimuqraadiyadan geeska afrika baanu ka sameynay, mashkaladii dhexdeeda ahaa baanu dejinay, jaarkii baanu walaag iyo walaaltinimo kula noolahay, dhaqaale adduunka culays kula saaray annagaa iswado waa abuuray. intaasoo dhammi waxay tahay waxyaalaha dowlad lagu aqoonsado ee lagula shaqeeyo. caalamkana cid walba gacan nabadgelye ayaanu u fidinay, fagaarayaashana garnaqsi xooglaanu geynaa. haddana weli waktigii may gaadhin cidna tidhaahda ictiraaf ma mudnin iyo maydaan shaqayn iyo ceebtaasi aadanu ictiraafayna maanaan arag. dagaalka u weyn wuxuu ka socdaa waa dowladda muqdisho ka dhisan oo markii la ictiraafay ictiraafkii iyo dhaqaalaha heshay u adeegsatay inay kula dagaalanta Somaliland. hadday dhaqaale la dagaalan tahay, hadday propaganda tahay, hadday dhexdeeda qas ka abuursan tahay. marka dagaalka nagu socda waa dagaalka dowladda xamar ka dhisan oo wixii horena dalkan u geysatay ayaa maanta wada. waxaanse kuu sheegaya dadka Somaliland had kasta ha gaadho, qiimo kasta ha ku qaadato, waanu gaari doonaa ictiraafka insha allahu maalin aan dheerayn. waa tahay inkastood eeda usoo jeedisay dowladda Soomaaliya, haddana idaacad ahaan dhinacooda kama warhayno, balse waxaanu ognahay inay jireen wadahadallo u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaaliya in ay muddooyinkan hakad ku jiraan. maxaad nagaga biirin kartaa wadahadalladaasi halkay marayaan, haddii ay jiraan kulamo loo ballansan yahay amaba qorshaysan, iyo haddii ay jirto sabab aada noo sheegi karto oo wadahadalladaasi ay u joogsadeen ama loo hakiyay? horta dee qolada anugu warmahayo waana kaa warramay waxaan dhex yaalla. waxaan kuu sheegayaa wadahadal baanu diyaar u nahay,
inaan walaaltinimo ku wada noolaanaabaan diyaar u nahay dad waa isugu xignaa in layna dhex galaan may ahayn inaad xaqiiqada rumaystaan bay ahayd imikana annagu iyo somaliland iyo madaxweynedu waxay diyaar u yihiin wixii dhaba in lagu wada hadlo qolo walbana xaqiiqada ay kusoo dhawaato waxaa jiray kulan sida la sheegay aan sii qorshaysnayn oo aa ku yeelateen magaalada Addis Ababa dhowaan oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu idin kulan siiyey bal madaxweyne kulankaasi sidii uu ku yimid iyo waxyaabaha ka wada hadasheen haddaad nooga waranto waanu kulanay madaxweynaha Soomaaliya bishii February kulan aan la sii qorsheynin degdeg ah baan ku kulanay Addis Ababa waxaanu joognaa wax yar bay ahayd aynu wada hadalno oo waxayna aan wanaag ku dhamaysano ayaan ku heshiinay waana hadal wanaagsan wada hadalku markaas sidoo noqonayaa waa inuu noqdaa hadal meel dhexa la soo goro joojiyo waa in la helaa cid noo garqaada laakiin madaxda Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in Somaliland ay tahay wali qayb ka mid ah Soomaaliya maadaama aan si rasmi ah loo aqoonsan aragtidaada arrintaasi ku aadan xaqiiqada runtii ay taala waxa weeye 30 sano Somaliland iyo Soomaaliya laba dawlad bay kala ahaayeen waxaan ogolahay inaan dawladooda ixtiraamno inaan dad isugu dhawaanayno walaalahaana wax wada qabsano ma tihiin dawladda naga ma tihiin ma harun wax la isku qurano ma haddii markaas Somaliland ay ka gooday Soomaaliya inteedii kale isla markaana aydan helin ictiraaf caalamiya xalku muxuu noqonayaa sidee arrinta ku wadaysaan horta Soomaalida laba dawlad istagay baan waxayna dad ay ayagu leeyihiin deeman ka go'ay ereyga go'ay waa gaftay ma aan go'ayno laba dawlad istagay oo imkana kala baxay baan dawladdeeda waa dhisanayna caalamka ictiraafkana xamarka ma rabno xamar iyadoo dagaal waa inuu jirtaa adduunyada bisa dawlad baa dhisan oo aan ictiraaf beelin aan ictiraaf doonay iyo jibcada qoroxayso ictiraafku waa dadku inay soo ictiraafo dalkiisa dhisto markaanu annagu sidaan ku socono wadada markaanu hayno muddo dhow nabad dalkayga dhisano horumar cid walba gacan wadadaan u fidino qof walba isaga noo baahan oo dheer wax wada qabsana marka ictiraaf ma aha in ay lagu ictiraafo oo dawladda aad ku xiran tahay waa nafsadaada iyo kalsoonidaada had kasta ha qaadato waqti kasta ha gaadho qiimo kasta ha u kacdo waxaan ictiraafayna mari maayo ka waran haddii fikirka dadka qaar aaminsan yahay dhinaciisaba aynu u qaadno oo adiga lagu ogolaado inaad noqoto madaxweynihii Soomaaliya oo isku dhan oo caasimadii la siiyo Somaliland oo mar kale la soo celiyo midnimadii 60kii ay labada gobol ama labada gees ama labada wadanba ay iskugu yimaadeen khaladaadkii dhacayna dib loo saxo wax laga barto taasi dhinaca Somaliland suurtagal ma ka tahay horta waxa qalada intayna wax soo ogolaaneen madaxweynaha Xuseen waxaan ku heshiino aan waalamada abuurno waa taa tagi horta yaa wada hadlaya heshiinaya saysta waxaan ka doonaynaa qolada Soomaaliya inay aqoonsaan oo ay dhageystaan dawladii Somaliland ee 60kii walaalamada ugu timid iyo Soomaaliya in laba dawlad kala gaar ah haddaan taaba lahayn maxaad sheegaysaa madaxweynaha waa madaxweyne muxuu yahay maxamed cabdiraaci ilmaasoo baraan minister u tagay 10 sano xariga iyo dadkii soo diyaarada lagu garaaco oo madaafiic lagu dimiyo ayuu ka macaashay waa in la helaa Soomaaliya iyo Somaliland 60kii halkay joogeen in la isku aqoonsado way madaxweyne marbaa jirtay aad loo hadal hayay in madaxweynaha Soomaaliya la filayay inuu magaalada Hargeysa yimaado oo halkaasi kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco inkastoo aan kulankaasi dhicin sidaan ka warhayno ma jirtaa suurtagalnimo ah in ama farmaajo ama madaxweyne ka dambeeya oo Soomaaliya yimaadaba ay ku soo dhaweysaan Hargeysa oo Somaliland idinku yimaado halka kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco shaqadaan cadeey Soomaali qof kasta oo Soomaaliya man dabcin Hargeysa waa jecelahay waan soo dhaweynaa Soomaali inay soo talaabo shaqaystana waa soo dhaweynaa Soomaali dad iyaga isku xigta dad wanaagsan oo halgamana way ahayd dhamaantoodba maanta Maxamed Cabdullaahi wuxuu taagay inuu yahay madaxweynihii Soomaaliya iyo Somaliland oo gobol ah taasi xaqiiqo ma aha isagoo taasna iman maayo Hargeysa marka hadiiba uu qiro oo uu ogolaado Somaliland inay tahay dal madax banaan miyaan la oran karin xigmadii uu soo socday marka meesha way ka baxaysaa waxay ahayd in madaxweynaha xamartaa ugu bilaabo walaaladayo hore iyaga dawladda loogu yimaadeen way la bidoobeen maantana goorma istaga walaa anaga ictiraafayna dabtana aynu soo wadnay walaalo isqadareyna laakiin ma dhacaysa dadka walaalada loo quurin maayo gobolada waqooyiga soo siyaarinaya taas ma suurtoobaysadii وهاجاك آديات بعض ما هتسنتحي مدن موسى بيحي عبدي مدحوينها سوماليلان ورئيسيغان فاحفاحسن عاد حوكتا بدن نغسي سياد نو قلاتي مركلو حكوليهاي مهتنed daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabayn doonaa assalaamu calaykum